السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا ولاشي نجيكوزين مركلة إيه مقال عصب كسو دوادا إذن ليها دمانتين فضلا هدان ugu cusubtaa subscribe kana hilmaamin hadaa hore noola joogtay aad iyo aad umahadsan tahay dhammaantiin welcome to my youtube channel asxaabey maanta halkan waxaa noogu wadaa saliidii korka lagu naaxinayay gacmaha haday caata ka yihiin lugaha ka dhuuban yihiin ku naaxin lahayd qurux kaaga dhig lahayd dhanka kale korkaaga haduu qalalan yahay korkaaga alaabtan waxay ku siinaysaa dufan waxay ka dhigaysaa kor smooth oo qurux badan alaabtan inaba caadi ma ahan ma sha Allah waxa ka sameeyay saliid waaye wixii aad gurigaaga waxa ka heli kartid oo fudud easy ayaa ka sameeyay waan isla arki doonaa sidaan u sameeyay hadana waan ku dagaleynaa asxaabey alaabtan ma sha Allah hadii aad laazimtid oo korkaaga gacmaha ka cabanaysid caata ama korka kale lugaha ama gacmaha meel kasta ayaa marsan kartaa alaabtan waa wax dabiici ah oo dhib ku keenay alaabtan waxa ka sameeynayaa saliideeda maanta waxaan ka sameysanayaa arabo korka inaan ku soo quruxsado gacmaha ama lugaha ama meel kasta caata ka ayaa marsan kartaa alaabtan oo ku soo naaxinaysa ku soo dhisaysa halkan waxaan ku haystaa xulbo ayaan ku haystaa halkan xulbad qof walba uu yaqaana xulbada nooca miraha ee jaalaha isticmaalaya xulbada waxa u baahan tahay xulbad fresh ah ee xulbad soo daashay dukaamaha qaar waxa yaal xulbad waa hore camal waxa soo gadanin xulbad fresh supermarketka ku dhow ka soo gado ama meelaha qasilka huruudka waxaas lagu gado maamooyinka ayaa gadaan ka soo gadan doontaa waxa u baahan tahay xulbad fresh ah oo jaala yellow aan rabaa inay ahaato xulbadaada ma xulbad cadcad iyo xulbad waa hore ahayd iyo waxaas inaad soo qaadatid xulbadaada waa inay ahaato xulbad fresh ah xulbadii aan meesha ku haystaa waxaan ka isticmaalayaa 2 qaado ilaa 3 qaado ka soo isticmaalaya waxaan ku soo shubtay sufriya iyo sufriya ku soo shubtay 3 qaado xulbadkeed waxaan ku soo darsaday bakeeri halfkii oo biyo ah caadi biyaheena cad ah ku soo shubtay oo bakeeri halfkii ah xulbad iyo biyo ayaan halkan ku haystaa asxaabey waxa kale ku soo darsaday saliid nooca isticmaalay waa saliid zeytuun olive oil waxa u baahan tahay saliida isticmaalaysa qasab waa inay ahaataa saliid zeytuun looma baahna saliid kale asxaabey waa inaad taas ogaataan saliida nooca u baahan tahay waa saliid zeytuun olive oil u baahan tahay ma u baahnid saliid kale inaa isticmaashid maaha asxaabey alaabtan waxa lagu isticmaalaa saliid zeytuunka aadayna kugu shaqeynaysaa hadaa saliid zeytuun iyo xulbo fresh isla heshid ma sha Allah sidan hadaan u sameynayo u sameysatid ma sha Allah gacmahaaga lugahaaga korkaaga meesha u baahneed dhan way ku naaxaysaa wayna ku galisaa way ku shaqeynaysaa hadda dabkan soo saaray waxaan walaaqayaa waa saliidii iyo xulbadii biyo igu jiro biyahan way ka soo dhamaan doonaan waxa isweydiinaysaa hadda biyo iyo saliid sidee la isku waxinayaa laakiin biyaha way naga dhamaan doonaan waa sugaysaa adi ilaa 30 daqiiqo 25 daqiiqo camal suuga u kaadinaysaa dabkaagana waa inuu ahaada dab hooseeyo ma ku karinaysid dab said u kulul ku karinaysid asxaabay hadda u jeedaan way soo burinayaan maaragtan markay biyaha ay ka dhamaadaan waxa ku garanaysaa ma shanqareyso biyaha hadda waxay soo yeelan xubur camal ah ay soo yeelanaysaa waxaas dhan ma lahaanayso markay biyaha ka dhamaadaan ee saliidda ay ku soo harto waad fahmi kartaa indhahaaga ka garanaysaa hadda wali biyay leedahay xulbadeeni sida u jeedaan wali xulbadii biyay leedahay ma sha Allah dhanka kale hadda waa kana wax yar u soo kaadiyay hadda biyuhu way iga sii dhamaanayaan laakiin wali way ku jiraan way iga sii dhamaanayaan marka asxaabey waxa u baahan tahay dhanka kale inaad ku soo darsatid dhagayaraan ku soo darsay dhagayaraha iska badinin qiyaas adiga wax yar aan intaas hadda u jeedina ku soo darsanaya dhagayaraha hana la saarin isku mar ha saarin waa inaad gadaal uga dartid xulbada way adag tahay xulbada markay soo yara karto kadib waxa u baahan tahay dhagayaraha inaad gadaal uga dartid hadda dhagayaraha ku soo daray biyihii way iga dhamaadeen saliid bas ay soo hartay dhagayaraha hadana cabaar raba inuu kula soo karo kadib waa isla arkayna hadana qaab marka asxaabey hadda biyihii way iga soo dhamaanayaan waa aragtaan saliid iyo xulbad iyo dhagayara la meesha ka muuqdo waxaa la rabaa inay saas saliid kugu soo harto biyaha dhanka harana la rabaa alaabtan sida loo isticmaalayo iyo goorta isticmaalaysabo intaba adana waa idin sheegayaa hadii aad laazimtid weegi isbuuci 3 mar 2 mar hadii amarsatid gacmaha amarsatid oo kala saliida oo si fiican ugu massage gareysid ma sha Allah waxa waa faa'iidadeeda waa arki doontaa saliideedii hadda quruxda badnaysa si ugu soo bixaysaa
haddana waxaan bilaabayaa inaan kasoo dejiyo stafka kasoo dejiyo. dabkaan ku karinayo waa dab gaaban aad u hooseeyo ma ahan dab sare ma ku karinaye. marka asxaabey hadda waxaa soo qaateen kusoo laabtay baaquligeyga kusoo noqon dib ugu soo noqday waa kusoo shuba saliida dhan weli wax yar bur qabtaa bad saaid ma ahan biyo dhan ma qabto ujeedin waxa isku soo haray waa saliideen dhageeraha iyo ka sameysanayd xulbada ka sameysanayd waaye saliida isticmaalayo waa saliid zeytuun olive oil isticmaalaya. marka asxaabey alaabtan saanta dabka ugu soo dejisa hadda saan diyaar kuma ahan ma isticmaalaysid looma baahno mana ku shaqeynayso ma garateen. alaabtan waxa u baahan tahay hadda waa kana qashinka xitaa iska maana miirin meesha ku wada jiraan. alaabtan waxa u baahan tahay inaan meel dhigtid xilliga aad sameysay xilligiisa kale u soo noqono ma ahan haddaba in hore aan ka isticmaalayno ma ahan. hadda waxa waa alaabtan waxaa sameeyay shalay maqrib 12 maqribnimo sameeyay waxaan hadda soo qaadaya maqribka kale inaan la gaarno waaye oo soo qaado markaas kadib aan isticmaalno ma ahan isla hadda markay aan soo qaadano inaan hore ka isticmaalayno. masha Allah maalin kadib saliideeni qashinkii waan ka soo miiray sidaas quruxda badan oo nadiifka ayayna noogu soo baxday hadda waa diyaar waan isticmaali karnaa. saliidan waxa waaye weel ku shubanaysaa meel aad dhiganaysaa korkaaga habeenkii marsanaysaa markaas seexanay sidoo kale waxa ugu dambeeyo qabato waa inay ayada ahaataa gacmaha ama lugaha meel kasta meel ay rabtid korkaaga ayaa marsan kartaa waa marsanaysaa korka dhan aad deeqsinaysaa kadib waa iska seexanaysaa subaxii waxa sameynaysaa waa ka qabaysanaysaa haddana waa marsanaysaa way ku shaqeyn doontaa. hadda saliideen sidaas diyaar ugu tahay masha Allah gacmaha ku massage gareynaysaa si fiican u massage gareynaysaa u dhex gelinaysaa waxa laga ma sheekeyn karo faa'iidadeeda waa arki doontaa. asxaabey xulbada faa'iido badan ku duugan waxa waaye waa wada ka saysan Soomaa dhamaantiin waa isticmaashaan marka saliidan soo tijaabiye laakiin saliida aad ka sameeyay doonto alaabtaas saliid aad ka sameeysan doonto saliid kale wax ku matarayso waa inay ahaataa saliida loo yaqaan saliid zeytuunka korka aad iyo aad faa'iido ugu leedahay. midda kale asxaabey korkaaga haduu qalalan yahay oo tahay dadka dryga waa isticmaali kartaa alaabtan waxa korkay ku qoynaysaa ku jilcinaysaa masha Allah hadaan kale aniga kale xitaa dry ahay marka waxa hadii aad marsatid halkaasna way ka caawinaysaa hadii aad marsatid dhankaasna way ka caawinaysaa oo korkaaga way ku qoynaysaa waxay kaaga dhigaysaa qor qurux badan qaleelka iyo waxaas dhan ay ka zuulinaysaa masha Allah tabarakallah lagama sheekeyn doono. asxaabey hadii halkan soo gaartay aad iyo aad u mahadsantahay muuqaalka noo like garee noo share garee soo dad badan u gaaro aad iyo aad u mahadsantahay dhamaantiin.